quruxda badan iyo labeentii ummadda Soomaaliyeed oo hortooda fadhiya oo runtii aanay budnayn dee macnihiina ka soo istaago aad baan idinku mahadnaqayaa dulqaadka iyo dhegeysiga iyo waqtigiina labadaba ka mahadnaqayaa hambaliyo kowda luuliyo hambaliyo dhahada ma maqlayo weli ma maqlayo weli niyo waa mahadsanti maanta runtii inkastaani maalintii ku beegnayn haddana waa maalin qiimo ummadda Soomaaliyeed leh verso July oo dee laba la odhanayo midhaa kulku maalintii waxaa u taqaanay xorriyaddii waa maalintii calankaan idiin keenay inaan dib loogu soo celin laakiin waa la soo noqon doonaa insha Allah waxaan si weyn oo kaliya laabo soo dhaweynayaa safiirka cusub ee loo soo magacaabay dalka Jarmalka Cabdicasiis Maxamuud Farabadan oo leeyahay ku soo dhawow dalweynaha Jarmalka mudane safiir sidoo kale wasiirku fahmi siyaasadda uu soo jeedaa waa reer Salaad Xasan madaxweynihii hore ee dowladda Itoobiya Salaad Xasan burburkii rajada markay soo noqotay shirkii carta daahiro adiguna soo dhawow adeer iyo artiyeyn adeer waxba ku soo dhawow dalka Jarmalka iyo runtii maanta waa ka duwan Xasan Buraali iyo Sariid oo ah maamulka daladan DES Worldwide ama Dachverband der Somalischen Verein in Deutschland ururka dalada soo taga midowga jaaliyadaha Soomaalida ee halkan oo runtii aan uga mahadnaqayo in madaxda ummadda Soomaaliyeed halka keenaan oo hor keenaan iyo weliba maamulka kale laanta waxaa la yidhaahdaa jazaakumullahu khayran waa idinka mahadnaqaynaa dadaalka aad samaysay laba waxood baan u soo kacay oo kale halkan weyn u baahan wax la qabto anagoo qabiil iyo qabyaalada kulliyaday eegaynin siyaasadda iyo kala go'a iyo midnimada iyo islayntu waddankiibay ka socotaay halka qaxootigaa lagu yidhi shanta Soomaaliyeedna adigaa kolleyba iminka lagala xisaabtamaya safiiru ah waxaan kugula talinayaa si isku mid ayna ugu shaqayso biidnillaahi tacaala oo aan u kala aftirin inaad isugu aftiriso mid u soo wada aragto kolleyba abiyo hooyadahooda walaaqahooda kugu xirmayaan oo danahoodii iyo ubadkoodii iyo faamiliyadooda danahu kaaga xirmayaan adiga qusuulkuda intii aad u dadaali kartid aad u dadaashaan dadku markaa la hadlaya waxay sheegaan in labaduba lagu fogeeyey safiirkii iyo qusuulkiiba ay baarliin fadhiyaan runtii waa caqabad waxaan soo jeedin lahay oo kale in xukuumadda Soomaaliya ay kala fududayso dee qusuulkana waa usoo raro baarliin Frankfurt safaaraduna ay baarliin deganaato si lafteeda gobollada kalena dee xaq uga helaan xukuumaddii Soomaaliya haddii ay macquul tahay waxaa lagu soo magacaabay waddan dhalinyaro joogto dhalinyaro cusub ay joogto dhiigoodu fresh yahay wax badan kharibayaad safiiru tahay burburka qoysku aad ugu badan yahay safiir iyo qusuulu tihiin dhibaatada gudahayaga taalaana aad faa'iido tahay inaad noqoto bal meel runtii khayr qabtayn dee wax badan lagaa faa'iidayna waanu rajaynaa iyo qusuulkaba biidnillaahi tacaala waxaad aad safiir howlahooda u fududaysan adiga qusuulkuba haweenka Soomaaliyeed oo runtii aad u raganahay aan dayac farbadan u geysan haddaad aragto dalka Jarmalka hooyada ubadka la dadaalaysay masaajidka geenaysay malcaamadda geenaysay iskuulka geenaysay aabihiina uu dayacay annagu waan ugu horayne waa maa yacadi culayska dadka aad safiirka u tahay waxaa uu ku dhacaya ragga maaha waa haweenka haddii ay gabadh lacala wax kaaga soo baahato buugana cagta safir oo furnaada